dalkiisa wuxuu u qabtay shaqo muhiim ah oo qayb ka noqotay in laga guulaysto cadowga. Wuxuu ahaa ari raaca yar oo u dhashay Masar, wuxuuna ku caanbaxay inuu yahay basaaskii ugu yaraa dunida. Magaciisu waa Saalax Cadiya, wuxuuna dalkiisa u basaasay isagoo ukun gadaya saldhigyo iyo xarumo talis oo Yuhuuddu ku lahayd deegaanka Siinaay xilligii Yuhuuddu xoogga ku haysatay deegaankaas oo Masar ka tirsan. Dhammaadkii dhexdameeyadii Masaaridu waxay ku hawlanaayeen inay xogo badan ka ogaadaan maamulka Yuhuudda, si gaar ahaaneedna dhaqdhaqaaqa ciidamadooda, tirada iyo saanada ay haystaan kuwooda joogay aagga Siinaay. Si taas u suurtagashane waxaa loo baahday dad shaqadaas qabta, waxayna ku bilaabatay in sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka sirdoonka Masaaridu uu iska soo dhigo ganacsade isagoo badeecada keenaya dhulka Siinaay. Hase ahaatee, hawshiisa saxda ayaa ahayd inuu aaggaas dadka degan ka soo helo cid kala shaqaysa ciidanka Masaarida howlaha basaasnimo ee aaggaas uga baahan yihiin. Sarkaalkii Masaariga ahaa wuxuu bilaabay inuu dhex galo bulshadii uu tegay, isagoo mararka qaarkood guryo si gaara u eegtay u martinayay. Wuxuu soo sahansaday reer ari iyo digaag u joogo oo ka kooban oday, xaaskiisa iyo wiil ay dhaleen. Ugu horrayntii wuxuu ku fakeray inuu shaqaaleeyo odaga, hase ahaatee maalmo kadib wuxuu arkay in wiilka yar yahay mid caqli badan, odagana kaga habboon shaqada basaasnimada, isagoona ka shaqayn doona iibinta ukun. Sarkaalkii ka tirsanaa ciidanka Masar wuxuu shaqaalaysiiyey wiilkii yaraa ee Saalax Cadiya oo markaas jiray 12 sano, wuxuuna baray qaabka uu shaqaynayo, shaqooyinka uu soo qabanayo oo badi ahaa soo sheegidda dhaqdhaqaaqyada ciidamada Yuhuudda, hubka u yaal iyo meelaha ay dhigtaan saadka, sidoo kale qaababka uu xogta ugu soo gudbinayo sirdoonka Masaarida. Dhammaadkii sanadkii 1969 Saalax Cadiya wuxuu si rasmi ah ugu noqday sirdoonka Masaarida il muhiim ah oo ay ka helaan xogo badan oo ay uga baahnayeen aagga Siinaay, isagoo xogo muhiim u ahaa si sahlan uga soo gudbiyey xarumaha Yuhuudda sida tirada ciidamada, meelaha ay seexdaan iyo kaydka biyaha meelaha uu yaal. Hase ahaatee, Saalax muddo yar gudaheed wuxuu noqday mid shaqadiisa ka soo dhalaalay oo qabtay intii laga filiyey in ka badan, isagoona saaxiib la noqday qaybo badan oo ka mid ah ciidanka Yuhuudda oo u arkayay wiil yar oo ukun kaliya u keena si uu uga gato. Taas beddelkeedana Saalax wuxuu ku hawlanaa inuu Masaarida u tabiyo khariidada meelaha miinooyinku ku aasan yihiin oo askarta Yuhuuddu u sheegtay Saalax si uusan ugu waxyeeloobin marka uu u soo socdo xarumahooda isagoo u wada ukunta uu ka iibin jiray. Baaxadda shaqada muhiimka ah ee uu qabtay wiilka yar ee Saalax markay arkeen ciidamada sirdoonka Masaaridu waxay go'aansadeen inay sii ballaariyaan shaqadiisa, waxayna u soo qaadeen dhanka Qaahira isagoo u sheegay saaxiibadiis ukunta ka gadan jiray inuu maalmo ku maqnaan doono Qaahira isagoona u aadaya arrimo caafimaad. Taas beddelkeedana Saalax waxaa la soo barayay qaababkii uu u rakibi lahaa qalab basaasnimo oo la doonayay in lagu rakibo xarumaha saldhigyada Yuhuudda ee ku yaalay Siinaay. Muddo kadib Saalax wuxuu ku soo noqday deegaankiisii isagoo wata qalabkii lagu soo tababaray, wuxuuna ku guulaystay inuu in badan ku rakibo xarumaha Yuhuudda, waxaana u suurtagashay sirdoonka Masaarida inay maqlaan hadal kasta oo ay ku hadlaan iyo qorshe kasta oo ay leeyihiin hoggaankii ciidamada Yuhuudda ee Siinaay. Bil ka hor dagaalkii Oktoobar ee 1973 Saalax Cadiya iyo qoyskiisa ciidamada sirdoonka Masaaridu waxay u rareen magaalada Qaahira si loo ilaaliyo badqabkooda, waxaana ka dhex qarxay Masar iyo Yuhuudda dagaal Masaaridu ku gacan sarreysay kuna qabsadeen deegaankii Siinaay. Kolkii uu dhammaaday dagaalkii, madaxweynihii Masar ee xilligaas Anwar Saadaat wuxuu bilad sharaf guddoonsiiyey dhammaan halyeeyadii ka qayb qaatay dagaalkaas, uuna ku jiro wiilkii yaraa ee Saalax Cadiya. Wixii ka dambeeyey markaasna Saalax wuxuu ku biiray dugsiga ciidamada ee dalkaas isagoo ugu dambeyn ka mid noqday saraakiisha ciidanka sirdoonka Masar ilaa uu gaaray booskii sarkaalkii shaqada basaasnimo u qoray iyo boosas kale oo ka sarreeya. Intaas waxaa noogu dhan muuqaalkii aan ku eegaynay qisada basaaskii ugu yaraa dunida. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar. Sidoo kale haddii aad channelku cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe saaray.